shirweynihii labaad ee tiknoolajiyadda Somaliland ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Hargeysa. Shirkan ayaa ahaa mid lagaga arrinsanayay qaab dhismeedka iyo waliba mustaqbalka tiknoolajiyadda iyo isgaarsiinta Somaliland. Xamse Xayd ayaa mar kale warkan inoo haya. wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Somaliland ayaa soo xiray shirweynihii labaad ee qaab dhismeedka mustaqbalka tiknoolajiyadda iyo isgaarsiinta dalka oo labadii maalmood ee ugu danbeeyay si habsami leh uga socday magaalada Hargeysa. Shirweynaha labaad ee tiknoolajiyadda waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta, agaasimaha guud ee wasaaradda, agaasimaha guud ee shaqagelinta, hay'adaha dawladda ee kala duwan, mas'uuliyiin ka socota xafiiska Taiwan ee Somaliland, shirkadaha tiknoolajiyadda isgaarsiinta, aqoon-yahano ku xeel dheer tiknoolajiyadda isgaarsiinta, dhalinyaro baratay cilmiga ICT-ga iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. shirweynaha waxaa si weyn loogu gorfayay su'aalo muhiim ah la iska weydiiyay sidii loo horumarin lahaa tiknoolajiyadda Somaliland, iyadoona ka soo qaybgalayaashii ka doodeen kobcinta hal-abuurka da'da yar ee dhinaca tiknoolajiyadda, saamaynta COVID-19, caqabadihii iyo fursadihii tiknoolajiyadda ee laga dhaxlay, iyo sidoo kale fursadaha iyo caqabadaha ku gadaaman hirgelinta e-government oo hab casri ah oo laamaha dawladdu isticmaalayso tiknoolajiyadda elektroonigada. agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Somaliland, injineer Cali Cabdilaahi Daahir, ayaa ugu horeyn u mahad celiyay dhammaan marti sharaftii ka soo qayb gashay shirweynaha iyo mas'uuliyiintii sida weyn uga qayb qaatay doodaha iyo falanqaynta. waxaanu xusay in wasaaraddu diyaar u tahay inay martigeliso wax kasta oo lagu horumarinayo tiknoolajiyadda Somaliland. runtii waxay ahayd laba cisho oo aad iyo aad noo farxad geliyay marka la eego barnaamijyadii ka socday iyo doodihii iyo committeeskii iyo su'aalihii la isweydaarsanayay. waxaad soranaysaa malaha waxayba fiicnayd in 3 cisho laga dhigo oo la sii wado si ay uga soo baxaan solutions iyo xulul mashaakilaad badan oo dalkeena iyo dadkeena haysta inuu kaga saaro. insha Allah mustaqbalka ayaynu ka sii kordhin doonaa hadday tahay mawaadiicda iyo hadday tahay waqtiga waynu kordhin doonaa. laakiin waanu idinka raali gelinaynaa haddii cid tala fiican haysay, rayi fiican haysay, su'aal qabtay inay wax ku soo kordhiso shirka qabay aan waqtigu saamixin, waa idinka raali gelinaynaa. laakiin ma kala tegayno, waxa weeye wasaaraddu diyaar bay u tahay mar kasta wax la wixii tala ah ee horumarineed ee xagga tiknoolajiga lagu horumarinayo. wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Somaliland, Dr. Cabdiwali Sheekh Suufi Jibriil, ayaa ugu dambeyn soo gabagabeeyay shirweynaha labaad ee tiknoolajiyadda Somaliland. waxaanu soo bandhigay warmurtiyeedka ka soo baxay shirweynahan, waxaanu shaaciyay in 3 bilood kadib markii ugu horeysay wasaaraddu qaban doonto tartanka barnaamijyada software-ka oo ay dhalinta waxbaratay ku soo bandhigi doonaan hibada iyo hal-abuurka ay u leeyihiin cilmiga ICT-ga. waxaan halkan kaga dhawaaqayaa 3 bilood kadib bisha 12aad 15keedii noqonaysa in aynu qaban doono tartankii ugu horeeyay ee software-rada Somaliland. qof kastoo hal-abuura, shirkad kastoo wax soo saarta, markaad ka reebto shirkadaha weyn oo iyagu fulay, waxaan uga jeednaa da'yarta iyo cidda soo koraysa inaynu qaban doono Somaliland Software Contest 15ka bisha labaad insha Allah. waa 9 cisho. waxaan 9 cisho ugu sameynaa in la soo diyaar garoobo, wasaaradda la yimaado, waaxda ICT-ga la yimaado, shirkaduhu isdiiwaan geliyaan, dadku isdiiwaan geliyaan, qof waliba uu keeno fikradiisa si loogu ilaaliyo imkana uu sii diyaar garoobo. wasaaraddu kaligeed qaban mayso, annaga iyo shirkadaha waaweyn ee ka shaqeeya fiilkan ayaa isugu tegi doona, guddi madax bannaan baan samayn doonaa, dad khubaraan keeni doonaayo kala saara. wasaaraddu waxay ka aan doontaa mid ka mid ah qabanqaabiyaasha. ugu dambeyn waxaa xusid mudan in shirkan ballaadhan ee tiknoolajiyadda lagu soo bandhigay barnaamij documentary ah oo luuqadda Ingiriisiga ah oo wasaaradda isgaarsiinta iyo CBA iska kaashadeen oo lagu soo bandhigay hanaanka iyo horumarka tiknoolajiyadda Somaliland. Xamse Xayd, wararka laanta afka Soomaaliga, CBA TV, Hargeysa. hadal
oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Somaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees tayo waa Telesom